kusoo dhawaada wasiirka films. magacaygu waa wasiirka, waa barashada luqadda Jarmalka. kulli casharka maanta wuxuu isugu jiraa A1 iyo A2 isugu jira. mar walbana muhiim ah hada A1 A2 hada B1 tahay hada B2 tahay luqadda Jarmalka hadaadan Jarmal asxaabada Jarmal hada asxaab leeyahay Jarmalka aad dhex gelinin mar walba ina casharada hoos u soo laabato ku qasbantahay because wixii la barto waa ilooba hadaad contact lahayn dadkii luqadda bis abarta iska fadhiistay wixii dhan course markuu dhamaado waa iloobaysaa shahaada hayso ama haysanin mar walba waxa ina muraajaca sameeyso waa fiican tahay marka casharada qaar waxaan isku dayaa xataa inaan isku soo rifaaqo haduu qofka mesela aan si yahay uu fahma haduu isfaayahana muraajaca u tahay marka wala kala faa'iideysana dad badan waxa jira iga soo codsan mesela ina macnaa casharo ka sameey maxaa la dhahay nominative iyo adjective maxaa la nominative iyo accusative iyo dative inshallah kuwaas waa gali doona waa fiirinaas fiican oo faahfaahin doona laakiin dadka inta badan arkaad kanaalkayga wax ka daawado oo macnaa luqadda Jarmalka barnaamijyada aad bilaaw u ah taas darteeda keenis badana ina waxyaalo oo basic waxyaalo oo hoose macnaha oo fudud ama oo casharo iska yar ina keeno si dadkaasi wax u faa'iidaan marka dib jiraan dad kale oo macnaha oo maxoogaa meel sare oo grammarka aad in wax ugu ogaadaan jecel ayagana insha Allah waqtiyan si doona oo casharo waa ka soo diyaari doona maxara marka ina idin sheego sidee jumlad loo sameeyaa luqadda Jarmalka sidee jumlad Soomaali jumla dibka jiro Jarmalka Soomaali toos ma ugu tarjumi kartid mesela Carabiga oo kale luqad professional oo lagu tarjumi karaa Soomaaliga si sax luqadda Soomaaliga jajab waa Ingiriisi iyo Carabiga ka buuxo wax ka soo xeel qaar Soomaali kuma helaysid luqadii macnaha burburkii wixii ku soo toosay oo waaga Soomaali wax lagu bari jiray hadda burburkii waxaan Soomaali cid wax ku baratay ma jirto luqadda Ingiriisi Carabi wax lagu soo wada bartay marka Soomaaliga daaqado ka baxay marka qaar daadada turjuma wax la qaar turjumaad xitaa ma laha ma fahanteen marka insha Allah waa isku daya intii tabarteeda isku daya sidee jumlad u sameynaysaa jumlad horta kood intaad sameeynin waxyaala u baahan tahay waxa kamid ah intaadan nixin luqadda Jarmalka aad ka fikirin horta maxaa rabtaa inaad dhahdid marka ogaatid waxa rabtid inaad dhahdid Soomaaliha ku ogaatid kadib luqadda Jarmalka imaa kadib tartiib u bedelaysaa ma fahanteen marka jumladaas sameeynin ka hor idin sheego waa kood inaad fikirtid tusaalahan ina macnaha tusaalahan anigu waxaan xanuunsanahay ina dhahan raba waxaan xanuunsanahay waxaan xanuunsanahay miyaha qofka xanuunsan yaa waa ani Jarmalka maxaa lagu dhahaa ani ish xanuun maxaa waay karanka waa خلاص جاء فكرته واحسة مرك أنا واحد وصلنا Soomaali معناها حتى عربي Soomaali ما كفير سكوت دوي هنا أنا مريض يعني أنا مريض أنا حنون لكن Jarmalka كدوية إيش كرانك مدي كرتت waayo luqad kasta qaanuun ay leedahay iyo qaab wax loo qoray leedahay iyo macnaha system la raacay leedahay ma fahanteen su'aal ahaan marka inta badan waxa fiican ina baratiin baranawniska baranawns magac u yaal mesela magac u yaal because mar walba waxa tiraahdaa waa aragtay anigu waa baxa asaas sameeyay ayada maxay saas u sameysay anaga gurigan joognaa fiir kuwaas magac u yaala dhaha anaga idinka ayaga asiga ayada adiga aniga kuwaas hadaadan barnaamijka hadaada ka siinin wax ma soconaa marka si jumlada u bilaawdo waa ina si jumlada u dhistid kortkooda waa ina ogaata ama barata marka iska hadlayso waa ish qofka soo horjeedo waa do yani adiga waa nin inagu xudoono hada carabi kale to ka duwan yahay anti isbedela هو وإذا حيلا بدنا نسبدلها يجرو لكن جرمانكا دو نين إنك وحربها ما فهمتين إيش دو هدو قفكا كهذا سنين يهاي وقفكا لي هاي إير واي هدي جبرتها هاي زي واي هدو ويلي هاي إير واي معنا قف ومعنا لب إير واي هدو قف دو مريا وحوا زي شيء كالاستحاد هدا كهذا يسمى مثلا جوري حيوان واتقين وحيالها كلا كسوهارو oo aanan ahayn nin inaag aanan ahayn s loo isticmaala sheeg kadib waxa kale ku xigo anaga oo ah via kadib waxa kale jiro waxa la iya idinka waay adiga duway idinka hadii dadka la hadlays ee badan yihiin arday badan ka soo horjeedaan waa iya waa I iyo r iyo ha waay marka iya ya I iyo ha iyo r waay marka هذا ما بقول له خامرنا إياه لا ما فهمتين
marka ii sheeg sidoo kale waxaa jirta marka iyo oo idinka iyo waxaa jirta laba z oo ah ayaga iyo z qofka ka soo horjeedo oo midda ah maxaa la dhahay formalka oo ixtiraamka ah marka saddex z leedahay Jarmalka z waa gabadha waa ayada waa marna z ilma badan ama dad badan ka hadlaysa ayaga dhahaysa marna z hal qof waa mar walbana marka hadlaysa lagu dareema laakiin qoraal markay tahay tan qofka soo horjeedo oo formalka oo respect wixii kaga duwan tahay kuwa kale esta weyn gurus sy way weynta qoraal ahaan laakiin ku hadal markay tahay wax farq uma dhaxay kali jumlada ku xirantaa waxa ka hadlaysid markaas la ogaana in marka hadisho ziyad tiraad in qofka ka hadlaysid inay gabar tahay qof dumar ka hadlaysid in dad badan ka hadlaysid group ay yihiin z inay yihiin maxaa la dhahay inuu qof ka soo horjeedo la hadlaysid qaabka uu hadlaysid ku xirantaa kuwaas barnaa inay xoogina sartina loo baahayaa marka jumlad saa u sameeysid marka hadiinan ficil uunan jirin hadii meesha wax ficil ah socosho qabasho sameyn haduuna ficil jirin sifo jirto sifo ama waxa sifeynaysid sifo ama magac tusaalahan ishbin wasiirka aniga waxaan ahay wasiirka yani wasiirka magac waay haddaan dhahayo ishbin karanka ama karanka waa la raadan saadonto macnaha karankan waa la dhigi karaa karankan waa la dhigi karaa karank ishbin karank ishbin karank marka karanka xanuun waa sifo waay haddaan ahaan ishbin wasiirka magac waay marka haddii magac ama sifo ah isticmaalaysid ama naftaa ka hadlaysid ama qof kaa soo horjeedo ama qof maqan ayada ah ama asiga ah ama anaga ah ama idinka ah ama ayaga ah hadda ka hadlaysid badana ficil waxa la jiro oo magacuyaalka ku xigo oo la shaqeeyo sign ficilkan sign marka sign la dhahaa muxuu isku bedelaa marka hadda aad iska hadlaysid mar walba ish aad tirahdid waa ina pin keenta kule waa inta ku soo qori doona ish marka tirahdid waa tirada ish pin qafka ka soo horjeedo hadda wax ku sifiinayso waa xanuunsan tahay waa dheertahay waa gaaban tahay waa qurxanta waa falxunta hadda dhaysid waxaas in sifo way haddii qaf ka soo horjeedo marka aad la hadlaysid oo ficilka sign la isticmaala oo meesha aan bin aan ka ahay qafku wuxuu noqonaa du bist ich bin du bist midda saddexaad marka hadda ka hadlaysid asiga oo wiilka iyo ayada he iyo she waa ingiriiska ama huwa hiya asiga ama ayada ama it meesha esta aan ku dhahaa waay oo macnaa guri hadda ka hadlayno yaanyur hadda ka hadlayno wax saas oo kale haddii s iyo r iyo z aan ka hadlayno xarafka labaad wuxuu yahay ku xig wax waa ficilka ist waay marka ich bin du bist ist sie ist es ist waa mogta marka istadaas iyo bistida qofka leedahay iyo beenta adeeda waxaan ficil sign la isku dhahaa ahaasho waay ma fahanteen ahaasho waay meesha waxa huwa qofka hadda tiraahdo du bist adiga waxa tahay waxa ku xig wuxuu noqonaa sifo ama magac laazim wax kale ma noqon karo jumlada laakiin haduu barana yimaado magacuyaalaha ush ama du yimaado oo ficil ku xigsamo markaas waa isbedelaya meesha sanka ka baxa waxyaalo kale soo gala suurta gala laakiin anaga waxaan ka hadlaynaa bis hadii sifo iyo magac qofkina wax ka sheegtid aday ama qofka wax ka sheegtid qof aad iska sheegtid ama qofkan ka sheegtid ama qof maqan ka sheegtid mar walba ficil sign u baahan tahay marka waa inaad barta ich bin du bist ist sie ist es ist waxa ku soo hartay marka kuwaas saas u kala baxan saxas bin iyo bist iyo ist kuwa kale maxay kaga duwan kuwa kale kulli hal waxay ku wada shaqeynaa lahay sind s iyo e iyo n iyo da way sind salaha wir sind anaga waxaanahay wir sind krank yani anaga waa xanuunsanay wax saas oo kale guriga wada joogtiin familkii wixdan corona qaba waalidii yimid xaaladna wareystay waxa dhaysin wir sind krank anaga waa xanuunsanay sind la shaqeysaa marka wir marka
haddaa ka hadlaysid kuwii maqnaay oo dadka badan ahaay la isku diray oo ayaga ay ahayd sie sind ay noqonaysaa. qofkii kaa soo horjeedo oo formalka ahaa sind uu noqonaa. marka waxay kaga sameeyeen waxa waaye waa sind iyo wir sind iyo markaa dhigaysid waa iyo seid. inta kalena waa idin sheego waa ist iyo bist iyo bin. ma fahanteen? marka taasaa muhiim. jumlad saa u samaysid marka kooda magaca luqadda dalkaaga hooyo luqadaada hooyo waa inaad ku ogaataa kadib aad jarmal u bedelaysaa. aslan jumladdu waxay ka kooban tahay inta badan ficil iyo faacil iyo mafcuul. Soomaaliha ma aqaan. marka waxaa ka hadlaysid magacu yeelaha sheyga ficilka ama dhexda ku jiro ficilka iyo ismul makaan ama sifay dhahaan ama meesha magac ama sifo. tusaalahan hadda markaad tirahdid ich bin groß yani anigu waa weyn markaa dhiisoo kale waa adiga iyo ficilkii bin ah iyo sifo. marka saddexda shay ka kooban. marka waxa dhiis marka hore inaad ogaatid fiican kadibna luqadda u bedelaysaa. luqadda Jarmalka mid inaad ogaatid waa muhiim. ereyga ficilka mar kasto booska labaad waa. markaas waxaad maqlaysaa ich bin, ich gehe, ich esse, ich schaue waxaan waxbaa daawanaya, ich gucke waxbaa fiirinaya, ich suuqe waxbaa raadinaya. mar kasto ficilka booska labaad waa mar walba. jumlad seerta isugu qasnaato. haddii jumladda ay ku jirto laba ficil ficilka koowaad waa inuu booska labaad istaagaa, kan labaad waa inuu u dambeeyaa. laba ficil gudaha ma wada garto Jarmalka, mamnuuc waay. midda kalena maxaa waay haddii ficilka ay ka bilowdo jumladda su'aal uu noqonaa. tusaale ahaan waxaad rabtaa qof inaad tiraahdo ich liebe dich waan ku jeclahay, ich liebe dich. haddii liibadan lieben love waay. haddii verbkan ficilka liiba oo banaanka aado su'aal ay noqonaysaa. tusaale qof markaa dhis mijecesha oo kale fiiri liibta ka bilaabaysaa marka liebst du mich yani adiga mijecesha. marka haddii ficilka banaanka ay geysido jumlada uu ka bilaabanayo su'aal uu noqonaa. haddii su'aalan aadan rabin oo jumlada caadi oo hadli jumlad caadi si walba ha noqoto booska labaad waxaa iska leh ficilka mararka qaar waa jira oo banaanka aaday. waa markii file macnaha maxaa yeele oo kale file markii la isticmaalayo iyo markii jumlada ku jirto laba ficilna booska labaad ogolaa kan kalena banaanka loo tuura. kuley tusaale badan waa ku arki doonaa casharadeenna soo socdo. magacuyaalka shimay isticmaalaysaa ish iyo du iyo waxaan ishmay isticmaalaysaa markaad nafsada iska hadlaysid, markaa qofkaa soo horjeeda la ka hadlaysid, markaa qof kala maqan ka hadlaysid, markaa ayaga ka hadlaysid, markaa anaga iska hadlayno. mar kasto naftaada ka hadlaysid ama dadka kale ka hadlaysid magacuyaala isticmaalaysaa. ilaan waa aragtay qof markaa magaciisa hebla waxa sameysay haye kadib ayada saasay sameysay kadib ayada saan yeeshay ayada lele ayada waa markii waa zi waay. laakiin ma dhisid hebla waxa sameysay hebla kadib saasay yeeshay hebla kadib maanta magac ma soo celi kartid. marka magacuyaalkan ina bartiin muhiim waay waayo mar kasto waa la isticmaal laga maarmaan waay. marka xoolaha tusaalan ka bixinayna marka tusaale ahaan waxaa rabtaa inaad dhahdid aniga caafimaad waa qabaa. aniga maxaa waa Jarmalka ish waay. maadaama caafimaadka uu sifa yahay ficilka zayna isticmaala because naftidan ka hadlooya. marka ish maxaa ku xigo bin waay. macnaha sayidku waa idin sheegay ficilka zayn marka iska hadlay bin waay. marka caafimaadkan maxaa waay gesund. si jumladu sameynaa marka waxaa leeyahay ich bin gesund. aniga macnaha waa caafimaad qaba fiicana ich bin gesund. qofka kaa soo horjeeda artaa inaad tirahdid adigu waa xanuunsan tahay. adiga maxaa ku dhaaf Jarmalka du. okay xanuunka maxaa waay krank ama krank. okay kranka xanuun waay sifo waay. maadaama sifo tahay wixii magac sifo idin dhaw waxa la isticmaalaa ficilka zayn. qofka soo horjeeda maxaa la dhahaa bist. marka mar walba inaa maskaxda ku haysan la rabaa zayn sida loo isticmaalayo mar walba inaa xifdid bin ich bin du bist waxa inaa xifdi u baahan tahay. okay qofka marka xarba inaa dhahdo waa xanuunsan tahay adiga maxaa dhahaa du bist krank ama du bist krank. adiga waa xanuunsan tahay
ich bin gesund ama waa kala bedela ich bin krank aniga waa xanuunsanahay du bist gesund adiga waa fiicanta yani caafimaad qabta okay waxaan rabnaa inaan dhahno مثلا ayada waa weyn tahay asiga waa yar yahay ayada maxaa lagu dhahaa af Jarmalka sie weyna maxaa waay groß ama groß ama groß raad daarad saarto ku dhawaaq maxaa leeyahay marka sie waa maadaama uu ereygan groß ama groß uu yahay sifo uu yahay ficilka zaina isticmaala ficilka zaina markaan ka hadlayna ayada asiga maxaa waay waa ist maxaa leeyahay sie ist groß sie ist groß ama sie ist groß saa ugu dhawaaqaysa raad aday ku jirtaa ama dhawaaqa focus saar ama luqadda baro aday ku jirtaa asiga waa yar yahay yaraan klein waa ama short gaaban ama yana weynaan yaraan klein sifo waay okay asiga maxaa waay waay marka maadaama sifo aan haysto magacyaan aan haysto maxaa isticmaalaa ficilka zaina isticmaala asiga muxuu qaadanaa ist waxaan dhahaa ist klein ist klein sie ist groß sie ist groß ist klein tusaale ahaan marka faqiir waxaa la dhahaa arm waa a iyo ra iyo ma marka raada laguma dhawaaqay arm ay dhahayaan arm waa arm lacag leedana waxa waaye faqiir waa taas lacag leedana waxa waaye raish ama gaash inaan dhahnaa marka anaga faqiir aan nahay ayaga lacag lee waay marka lacag lee faqiir sifo waay magacyaalkan waa naqaana anaga waa fiya ayagana waa zi dad badan waa zi marka maadaama magacyaal aan haysto iyo sifo aan haysto maxaa isticmaalaa ficilka zaina ficilka waxaa isticmaalaa zain okay anaga muxuu qaadanaa sind ayaga muxuu qaadanaa sind waa idin soo sheegay marka maxaa leeyahay wir sind arm wir sind arm ama wir sind arm anaga waxaan nahay faqiir ayagana sie sind reich ama sie sind reich sie sind reich ayagana waa lacag leey marka mar walba oo dadka aad ka hadlaysid ama adiga iska hadlaysid aad haysatid ii sheeg ficil aadan haysanin oo sifo ay haysto waxa aad sifaynaysid ama magaca sheegaysid waxaa isticmaalaysaa ficilka zain ficilka zain waa inaad bartaa mar walba bin iyo bist iyo ist iyo sind kuwaas inaad bartiin muhiim waa xoog inaad saartiin sidoo kale magacyaalka waxaa la isticmaalaa tusaale ahaan markaad tiraahdid cuntada oo kale das essen ina cunto magac waay das essen macna ficilka cunida essen wala cuntadana essen wala english waa ka duwan yahay englishka food waa cuntada eatingna waa cunitaanka laakiin jarmalka essen waay marka das essen cuntadaani inaad tilmaamo rabo aan dhaho way qabowdahay qabow waa sifo waay cuntadaani magac waay marka maxaa u baahanaa ficilka sayna u baahanaa cuntada shay iga maqana ka hadlo cunto waay erna ma dhihi karo ma dhihi karo ii sheeg ma dhihi karo zina ma dhihi karo marka waxay noqonaysaa s waay s ist waay marka waxaa leenahay das essen ist kalt das essen ist kalt cuntadaani waa qabow sidoo kale waxaad dhihi kartaa adoo cuntada booskeeda waxaa ku bedeli kartaa es ist kalt way qabowdahay waryaa cuntada cun es ist kalt way qabowdahay ma cunahay haddee kulushahayna waa warm das Essen ist warm raa ku jirto farm lama dhahayo kale raad waa la qarina farm maanta oo marka waxaan ka hadlayna waa sifo magac seen u sheegaa magac waxa uu sheegaysaa hadaa leedahay mesela isbitaalkan jooga isbitaalka magac waay Krankenhaus ama waxaa tiri mesela waxaan joogaa guriga ama waxaa tiri waxaa joogaa meesha beerta xadiiqda la fadhiiso garden sidoo kale magac wuxuu noqon karaa iskuulka marka leedahay iskuulkan joogaa sidoo kale
kindergartenka meelahaas dhan waa magac. marka haddii aa ka hadlaysid magac ama shay sifa aa ka hadlaysid mar walba ficilka sein aa la isticmaala. waa muhiim, ma fahanteen? marka kule tusaalooyina inta isku soo qora. مثلا waxaa dhihi kartaa, مثلا waxaa leedahay مثلا inaad dhahdartaa aniga waxaan joogaa isbitaalka. ich bin, because isbitaalka magaca waa, mar haddii magaca ay sheegaysid naftaadan aa ka hadlaysid ama qof kale aa ka hadlaysid waa inaad ficilka sein isticmaashaa. مثلا waxaa leedahay ich bin im Krankenhaus ama ich bin im Krankenhaus. مثلا waxaa rabtaa inaad dhahdid waxaan joogaa guriga. ich bin zu Hause. ich bin zu Hause. waxaan zuudan iyo imtaan iyo kule waa ma aqaano af carabiga xarfu jar wax la ma aqaano. jumlada isku xiraysa kule Soomaaliha ma ku aqaano. jumlada wax isku xiraa waa anaga milihna uma luqada Soomaaliga. waxaa rabtaa inaad dhahdid مثلا meesha dadka ay fadhiistaan oo coos kale oo kala garden la dhahaa. waxaa rabtaa inaad tiraahdo aniga waxaa joogaa مثلا meeshaas cooskaas joogaa camal inaad dhahdartaa ama beertaan joogaa مثلا meelaha beertaan fadhiya camal ama aan joogaa inaad dhahdartaa. marka waxaa leedahay ich bin im Garten. ich bin im Garten. ich bin im Kindergarten. ich bin im Kindergarten. sidoo kale suuqa markaad joogto oo kale ich bin in der Schule. ich bin in der Schule. marka waxaa muhiima mar walba inaad ku fikirtid jumlada intaada dhin ka hor luqada Soomaaliga inaad ku fikirtid maskaxda aad gelisid kadib Jarmalka u turjumtid kadib aad ogaatid maxaa waxaan ka hadlay maxaa ana ma iska hadlay mis qofkan aan ka hadlooyaa magacyaalihii wixii macnaha barnaamijka magacyaalha waa inaad ogaataa damiirka waa inaad ogaataa damaayir yani magacyaalha waxa dhihi lahayd kadib ficilka isticmaalis muxuu yahay maxaa rabaa inaan dhaho kadibna mafcuul ay dhahaan yani ficilka qofkii sameynayay magaca iyo maxaa la dhahay faacilka qofku wax sameynay iyo ficilkii wuxuu sameynay iyo wuxuu ku sameynay haddii magac yihiin haddii makaanta saasa isugu xiraysa. marka kulay waxaan rajeynaa in 10 ka faa'iidaysteen oo wasiirka uu idinkaga taasay nabadgelyo. mac salaamo.